بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ومركله يا برنامج كينا نصيب رمضان oo dadweynaha aan ku weydiinayna 5 su'aalood su'aal walbana jawaab ayaa ku sugan maanta waxaan ku sugannahay degmada Xamarweyne oo nasiib u yeelatay inaan barnaamij ku qabano aan fiirino su'aalaha ay qaabkii u baxayaan iyo qofka ugu horeeyo su'aasha qaabka uu jawaabi doono iyo amarinta uu heli doono marka hore ku soo dhaw barnaamijka adigoo magaca ku bilaabayo waa ku dhawahay magacayga waa Maxamuud Cabdinaasir Maxamed haye Maxamuud oo barnaamijku waxa waaye 5 su'aal 5 number waaye 1 ilaa 5 number qabso su'aalan ku weydiinayna number 4 number 4 waxa ku xusan waxa laga rabaa Nabi Maxamed sallallahu alayhi wasallam hooyadiis magaceeda sheeg Saadiya waa ma santay ma aadan haleelin marka hore ku soo dhawo barnaamijka nasiibsa Ramadan ee taabigelinaysa shirkadda Go Turkan Study magacaada ku bilaabay ku soo dhawo magacaygu waa Cabdiqaadir Cabdullaahi Xaashi Cabdiqaadir 1 ilaa 5 number bax su'aalan ku weydiinayna 1 ilaa 5 ha 3 number 3 waxa ku xusan Quraanka Kariimka ah dhowr meel ku jiro oo lagu sujuudayo sujuud tilaaba wax loo yaqaano isku jirkooda meeqa sujuud waa isku jirkooda ha inta meel la sujuudayo markii quraan la akhrinayo salahan iqra oo kalmada la akhrinayo ku dhamaatay la sujuudaa ma aha dhowr markii isku darkooda meeqa waay waa ma santahay maadan haleelin jawaabta magaca ku bilaaway Dr. Gacmi hay number 2 ilaa number 5 number baxso su'aala ku jiro number 5 waxa ku xusan caasimadda Australia Australia ma ها عاصمة هذا شك لازم شيء كريم وما سنتهي اسكو دقيقة مركز كسر هو برنامج كذا ومقعك بلاوايو حسن علي معالمي يا الله حسن كو إلى إيش النمبر بحثه أفر وحشيك النبي محمد صلى الله عليه وسلم هو يسمع مقعد حليمة وسعدين هو يسمع كله ناكت إنه جسم كلهن النبي محمد هو يديس بنت وهب يا اسكو دقيقة واحد ساعة ودو ده خديجة وما سنت اسكو دقيقة لكن ما أذن هليلين مركز كسر هو برنامج كتاب جيلنا شركة Go Turkan Study مقعد أكو بلاوايو مقعد مصطفى علي محمد مصطفى كو إلى إيش النمبر بحثه شن وحشن waxaa laga rabaa caasimadda wadanka Australia caasimadeeda sheeg ما يمكن ay ma santahay ma aan haleelin marka hore ku soo dhawo barnaamijka nasiibsa Ramadan ay taabigelinayso shirkadda Go Turkan Study adoo magaca ku bilaabayo Cabdirashiid Abduqaadir Cabdirashiid ko ilaa 5 number baxso su'aalan ku weydiinayna number 2 waxa ku xusan waxa laga rabaa xayawaan oo carabka neefsado markuu neefsahay carabka neefsahay ha يا جيل حيوان واي سيفي عم دغيس waa xayawaan carabka neefsado eri ma santahay isku daygaag ma adan haleelin marka hore ku soo dhawo barnaamijka adoo magaca ku bilaabayo aniga magacayga Abu Maxamed Saabdi buu su'aasha 1 ilaa 5 waay number baxso number 2 waxa ku xusan nabi aadam maalintee la abuuray maalmaha isbuuca maalin kamid ah la abuuray maan arbaca la abuuray ma santahay ma adan haleelin jawaabti marka hore ku soo dhawo barnaamijka nasiibsa Ramadan ay taabigelinayso shirkadda Go Turkan Study adoo magaca ku bilaabayo بسم الله وكدوا هرد برنامج مقعي ومعلم عبد الله بنو هي 2 ilaa 5 maxamed number 2 waxa laga nabi aadam goormeel maalintee la abuuray maalin jimcaha la abuuray waa sax waa ka jawaabay nabi aadam alayhi salaam waxa la abuuray maalin jimcaha wuxuu nagu leeyahay awaal marin marka ku soo dhawo barnaamijka adigoo magaca ku bilaabayo anigoo Axmed Maxamed Wardheere Axmed oo ku su'aalaha waa 1 ilaa 5 laakiin number 2 waa baxay waa 1 4 3 5 number baxso number 2 xayawaanka carabka neefsado eeyga waa ma santahay ma aadan haleelin marka hore ku soo dhawo barnaamijka adoo magaca ku bilaabayo waan dhawahay magacayga waa Maxamed Shariif maxamed oo barnaamijka waa 5 su'aalood hal su'aal baxay 1 3 4 5 aad diyaar ah number baxso 3 number 3 waxa laga rabaa quraanka meeqa sujuud ayaa ku jiro sujuud tilaaba quraanka oo dhan markii la isku daro meeqa sujuud waa 3 ma santahay ma aadan haleelin marka ugu horeen ku soo dhawo barnaamijka adoo magaca ku bilaabayo أحمد دي أو الشريف عبد الرحمن أحمد دي سؤالها وكو 3 لمبر بحثه نمبر كو waxaa laga rabaa xayawaanka carabka neefsado حيوانك عرب كنبصده وحيوانك أما magaciis sheeg جيلك أما الملايقة أما أرقة oo ma santahay ma aadan haleelin
ugu horeen ku soo dhawo barnaamijka adigoo magaca ku bilaabayo ku bilaaway Cabdiraxmaan Cabdullaahi Diin Cabdiraxmaan 2 3 4 5 number baxso saddex number 3 waxaa la wada quraanka meeqa sujuuda ku jirto sujuud tilaawo tilaawo 140 sujuud quraan aayad ma ku dhigin meeqa meel lagu sujuudaa waxaa lagu sujuudaa wejiga maya quraanka markii la akhrinayo meelo waxaa jira markii la gaaro oo la sujuudayo ma aha sida iqra oo kale markay dhamaato oo la sujuudayo meeqa meela oo noocaas ku jira oo la sujuudayo waxaa loo sujuudaa koobis koobal markii meeqa meel waay tirada sheeg meeqa meel waay shameel waa ma santeen aadan haleelin waa tahay daawadayaal weli waxaan wadnaa barnaamijkii nasiibsa ramadaan oo ay taabagelinayso shirkadda Go Turkian Study su'aaluhu 5 ayay ahaayeen hal su'aal ayaa baxay su'aalaha kala dhiman ayaan arkaynaa qofka xigo iyo wuxuu ka jawaabi doonaa insha Allah ugu horeen ku soo dhawo barnaamijka nasiibsa ramadaan oo ay taabagelinayso shirkadda Go Turkian Study adigoo magaca ku bilaabayo السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سعيد أحمد علي هاي سعيد وكو إيو سدح إيو أفر إيو شن لوا بح معنا يقول لي كو سدح أفر شن أفر أفر وحالة قاربا سورة أوقابا قرآنك مقعد الشك سورة أوقابا قرآنك سورة أوقابا قرآنك وحير إيد الغابة سورة أوقابا قرآنك كان لك وحير إيد الغابة وكدرانوسا فرصة ما وكدرانوسا بوبسي ثم ساس هذه آيات مكودة هنا سورة مكودة دقيقة سورة أوقابا سورة أوقابا قرآن آيات مكودة أقصو جواب إن أعطيناك واسحين هي سورة أوقابا قرآنك وسورة الكوثر أما إن أعطيناك همبليو ugu horeen ku soo dhawo barnaamijka nasiibsa ramadaan ay taabagelinayso shirkadda Go Turkian Study magaca محمد إبراهيم حسين maxamedow number 2 iyo number 3 iyo number 5 2 3 5 أيه number baxsee سدح waxaa laga rabaa nabigii loo yaqaanay khaliilullah magaciis khaliilur rahmaan nabi waxa jira oo khaliilullah loo yaqaanay ilaahay wadaagiis magaciis sheeg محمد رسول الله waa ma santahay ma haleelin barnaamijka ugu horeen ku soo dhawo barnaamijka adigoo magaca ku bilaabayo magaca Cabdicasiis Habees Isfaar yiraahdaa Abdicasiis 2 3 5 number baxso 2 3 5 lambarka shanaad lambar 5 waxaa laga rabaa suuradda ku soo aadeyso kala barka quraanka magaceeda sheeg suuradda ay ku soo aadeyso kala barka quraanka suuradda kala barka quraanka ku soo aadeyso waxaan rajeynayaa inay noqonayso insha Allah suuratul kahf hambalyo suuradda ku soo aadeyso kala barka quraanka waa suuratul kahf uu ka jawaabay hambalyo magacaygu Axmed Cabdullaahi Axmedow waxaa noo haray 1 iyo 3 iyo 5 lambar 1 waxaa laga rabaa nabi maxamed sallallahu alayhi wasallam hooyadiis magaceeda sheeg aamina bint wahab waa ma santahay hambalyo waa ka jawaabay nabi maxamed sallallahu alayhi wasallam hooyadiis waxa la aamina weli waxaan ku dhex jirnaa barnaamijkii nasiibsa ramadaan ay taabagelinayso shirkadda Go Turkian Study برنامجك ونمبر خبصة إيو أول مرين تفضل السلام عليكم عليكم السلام الأرقام 1 2 5 اختر الرقم بعد أسألك السؤال 5 اذكر عاصمة الأستراليا والله أنا سوري لا أنا سوري شكرا. أنا سوري مسكين شكرا السلام عليكم عليكم السلام أول من أسلم من الأطفال اسمه من الأطفال اسمه محمد لا محمد كان النبي صلى الله عليه وسلم أول من أسلم من الأطفال من هو اسمه سيدنا علي ما شاء الله سيدنا علي هو أول من أسلم خفك وهري إسلامه سيدنا علي همبلي وكجوابه شكرا السؤال خلاص صهرت هي سؤال وحنا شيء نبي قال له يا خان خليل الله مقعيس خليل كالله نبي لو يغن خليل الله خليل الرحمن ما
وما سنتين عمر نبي مو آه نبي نقول يعني النبي محمد صلى الله عليه وسلم معها النبي وحاجره لو يخانو خليل الرحمن وعانا كجواب بس كدي أم كان سيننا النبي عليه السلام وما سنتين ماذا نحليلي وجهرين كسر هو برنامج كان سيب سر رمضان أيوة مقعك بلاوي ما شاء الله وندوها والله المقعي محمد عبد الله هل سؤال أنا صهرتي سؤال شنو حشي يسا النبي قال له يا خاني خليل الرحمن خليل الله أما وذاقي إلهي صاحبك إلهي النبي قسمي الشيك والله إنه اسكتي هدي يعني اسكتي كل واحد يديه معي والنبي عيسى النبي عيسى معه وما سنت اسكتي قاعد برنامج كايو مقعك بلاوي وندوها مقعي وأحمد محمد آدم أحمد هل سؤال أنا صهرتي ده نسيب ولاده هاي النبي قال له يا خاني خليل الرحمن خليل الرحمن ونبي إبراهيم نبي إبراهيم عليه السلام وصح نبي قال له يا خان خليل الرحمن ونبي إبراهيم عليه السلام وإنه مركلة برنامج كينا إيمالين كلا قروح بدن واحد كده بنكرتين يوتيوب كشكل جوتو كان استادي وإنه مركلة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته